tababar muddo 3 bilood ah u socda 44 xubnood oo fidayaasha beeraha ugana socday kulliyadda beeraha ee jaamacadda Camuud ayaa beeraleyda tababarku u socday muddo 3 bilood ah oo ka kala yimid deegaanada gobolada Soomaaliland qaarkood ayaa ku soo bandhigay maanta aqoonta beeraha ee ay ka kororsadeen muddada tababarku u socday bandhiga beerista dalagyada ay soo bandhigeen beeraleydani maanta oo ujeedadeedu ay ahayd sidii ay ugu tijaabin lahaayeen aqoonta muddada 3 bilood ah uga socotay kulliyadda beeraha ee jaamacadda Camuud taasoo ay halkaas ku soo bandhigeen tijaabada dalagyada kala duwan iyo qaabka falashadooda ama beeristooda casriga ah dalagyada ay tijaabada ku soo bandhigeen fidayaasha beeruhu ayaa waxa kamid ah dalagyada ku baxa beer biyoodka ama beeraha waraabka ugu horreyn waxa ka hadlay bandhigaasi ay soo bandhigeen beeraleyda tababarku uga socday kulliyadda beeraha ee jaamacadda Camuud hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda Camuud Professor Abubakar Sheekh Cabdi wuxuuna tilmaamay waxyaabaha beeraleydani barteen wuxuuna xusay sidoo kale hormuudka kulliyadda beeruhu qaybaha iska kaashadeen tababarkani loo fidinayay beeraleyda ka socotay beeraha waraabka halkan muddo ilaa imika ku dhow 3 bilood waxaanu wadnay adaan nahay jaamacadda Camuud faculty-ga ama kulliyadda beeraha adaan wadnay wax tababar baan u wadnay beeraleyda Soomaaliland khaas ahaan kuwa waraabka oo balay irrigated farmers leeyahay oo la iska keenay all gobolada Soomaaliland oo la iska keenay oo tiradu ahayd ilaa 44 ayaa waxaan ku tababarinay halkan aan ku tababarinay beertan ayaa ku tababarinay waayo casharku beertan waxa wata aad arkaysaan waxa programka caawinaya oo maalgeliyay faawma maalgelisay waxa kale ku jirtay kale ayaa ku jirtay marka waxaan ku soo dhaweynayaa wasaaradda beeraha oo iyaduna hormood u ahayd tababarka 3 group baan ahay jaamacadda Camuud faaw iyo wasaaradda beeraha maxamed warsame oo isagu qaabilsan mashruuca waraabka durdur ee wasaaradda beeraha Soomaaliland oo isaguna halkaasi hadal ka jeediyay ayaa waxa kamid ah hadaladiisii tababar muddo socday oo loogu talagalay in lagu soo saaro niman tababarayaal ama dhalinyaro isku jirto rag iyo dumar bale oo tababarayaal oo ka kala yimid gobolada wadanka oo ugu muhiimsan qaybta mashruuca durdur ka socday oo awdal waxaan talagalnay inaanu maaragtay mustaqbalka looga faa'iideeyo beeraley fara badan oo kale oo qof waliba markuu dhulkaasi dib ugu noqdo oo ka yimid uu ka sameeyo maaragtay koox beeralaya la isku geeyo oo dabeetana fikradaha halkan ay ku barteen iyo casharrada farsamooyinka FFS-ka iyagoo isticmaalaya ay markaa sidii wax soo saarka iyo nolosha beeraleyda sare loogu qaadi lahaa in laga shaqeeyo iyo ujeedadu ahayd waxa isaguna bandhigaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Camuud Professor Axmed Cabdilaahi Boqorre oo sheegay in tababarkani uu ahaa mid looga faa'iideynayay beeraleyda beeraha waraabka ee deegaano ka mid ah gobolada Soomaaliland beeraleyda bandhiga tijaabadaha soo bandhigtay ayaa sheegay in ay faa'iido badan ka kororsadeen muddada ay ku jireen tababarkani ee ay ka baranayeen kulliyadda beeraha ee jaamacadda Camuud beeraleydaasi oo isugu jiray rag iyo haween ayaa waxa kamid ah hadaladoodii waxaan ka socdaa gobolka Maroodijeex horahadlay waxaan anahay gudoomiyaha ardayda FFS-ta 44 ka arday waxaan aad iyo kordhay isbarbardhigga beeraha tilan saladka oo kale waa la daday hadii la daday ka kalena lama dadin marka isbarbardhigga weyn kala daday uu ka fiican yahay ka kale xagga wax iibsiga wax soo saarkana aad buu uga lacag fiican yahay ka aan dadnayna aad buu uga yar yahay ka kale waliba xagga miisaanka kala daday tilanka ayaga kale 103 kiilo ayuu noqday halka kiyaan la dadina uu noqday uga FFS baa ku qoray waan akhriyay aniga runtii markaan aad u akhriyay wax igu cusub ah waa keenay markaan hay'adda fooyicada beeraha iyo adduunyadana arkay waxaan qaadanaa mid waxba ku helay حاجة نحري وحكوية لأفس فارمر في سكول فوبالة والنوع عين نوعه غير اللي ذا الشريسة غير اللي ذا سكول حرمسة والله عجب ما كبر أنت ها ما كان متدلو أنت المرة اللي نفسها ما كان وحن قادنه tababarkan ay beeraleydu ku qaadanayeen kulliyadda beeraha ee jaamacadda Camuud ayaa u soo xidhmi doona beeraleydaasi dabayaaqada bisha July waxaana maalgelisay hay'adda cuntada iyo beeraha ee FAO هاشم شيخ عمر جود صومالي سات TV بورما